in loo samafalo labada waalid. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay fii muxkami tanziilih waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayni ixsaana imaa yablugana cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وحكل إله سبحانه وتعالى عليه ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. آيات كلنا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ولا ليال aayadaha hore ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegay waqadaa rabbuka, rabbigaa wuxuu amray ama rabbigaa wuxuu xukumay anlaa tacbuduu ilaa iyaah, rabbigaa wuxuu amray nebi allow inaydan caabudin isaga mooyaane. wabilwaalidayni ixsaana, labada waalidna inaad u samafashaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ka hadlay in addoomahan la faray inay isaga caabudaan, kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku xejiyey xaqa labada waalid ay leeyihiin oo wuxuu yidhi wabilwaalidayni ixsaana, iyo inay labada waalid u samafalaan. kadibna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka sii hadlay oo wuxuu yidhi imaa yablugana cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa, haddii ay labada waalid labadooduba ama midkood uu ku gaadho agtaada weyni oo ku waayeeloobo falaa taqul lahumaa uffin, ha odhanin buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala erayga uf ha odhanin. walaa tanharhumaa, hana guulguulin ama ha canaananin ama ha karahsanin. waqul lahumaa qawlan kariima, waxaadna u tiraahdaa hadal wanaagsan. imaamu mujaahid calayhi raxmat ullah kama fii tafsiiri tabari wuxuu leeyahay oo laga soo guuriyey mujaahid aayadda ayadaa markuu fasirayay inuu yidhi macnaheedu waxa weeye labadii waalid markay waayeelaabaan oo ay gaarhaan heer ay kaadidii iyo saxaradii isku darayaan oo ay tahay marka ayaga inaad ka hagaajiso wakhtiga aad ka hagaajinayso kaadida ama saxarada ha karaahiyeysanin oo maaragtay ha dhibsanin, sidii ay adigaba markay ku soo koriyeen ay kaaga dhaqi jireen ama kaaga maydhi jireen kaadida iyo saxarada, aynana u karaahiyeysan jirin. adigu ha u nicin, hana u karaahiyeysanin, ayuu leeyahay imaamu mujaahid calayhi raxmat ullah. kadibna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waqul lahumaa qawlan kariima, waxaad u tidhaahdaa labadaada waalid hadal wanaagsan u leh buu leeyahy ilaahay subxaanahu wa tacaala. eray wanaagsan u dheh oo eray wanaagsan ku dheh ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay. أحد التابعين baa wuxuu weydiiyey سacيid بن المصyب raximah الlahu taعaalى baa wuxuu ku yidhi saciidow ilaahay subxaanaه wa taعaalى wax kasta uu ka sheegay labada waalid samafalkooda waan gartay oo waan ogaaday buu yidhi, waxaan ka ahayn aayaddan ayadaa waqul lahumaa qawla kariima. waxaan aayadda ayadaa ka ahayn ma ahaana intii kale waan fahmay, bal aayadda ayadaa ii fasir buu ku yidhi. saciid wuxuu ku jawaabay wuxuu yidhi macnaheedu waxa weeye waa qowlu اlcabdi اlmudnib lisayidi alfadl. wuxuu ku yidhi waa erayga uu ku yidhaahdo qofka addoonkaa ee dembiga galay markuu la hadlayo sayidkiisa adag, qofkuu kala adeeg yahay. waxaa tusaale innaga inoo noqon karta qofka shaqaalaha ah ee qofkiisii booskiisa ahaa markuu la hadlayo weliba isagoo dembi inuu galay og yahay, qofka booska ahna uu yahay qof adag oo maaragtay adaygu ku yaqaano, sida ladifane oo ula hadlayo sidaas oo kale ayaa waxaa la yidhahdaa buu yidhi qowlan kariima. taasaa waxay noqonaysaa ayuu ku fasiray imaamu saciid radia allahu canhu waraximahu llah inay tahay qowlan kariima. taas iyadaabuu ku fasiray. marka inuu qofku labada waalid uu yidhaahdo hadal wanaagsan, hadday waayeeloobaan iyo haddaysan waayeeloobin, hadday waaweynaadaan iyo haddaysan waaweynaadninba
inuu hadal wanaagsan iyo eray wanaagsan ku yidhaahdo ayaa loo baahan yahay labada waalid oo si wanaagsan oo latiifan uu oola hadlo labadiisa waalid ayaa la iska raba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sii waday wuxuu yidhi waqfid lahumaa janaaxa dulli min alraxma waqfid lahumaa janaaxa dulli min alraxma waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira labadaada waalid u raarici dhinac naxariiseed u raarici waxaadna tidhaahdaa u duceeyo rabbi irxamhumaa allahayow u naxariiso kamaa rabbayaanii sagiira sida ay ii soo rabbeeyeen oo ii soo barbaariyeen anigoo yar ilaahayow u naxariiso dheh sidaas iyadaa dheh buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala aayadahan iyagaa walaalayaal wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala ina baray sidaynu oola dhaqmino labadeenna waalid hadday waaweyn yihiin iyo hadday yaryar yihiin yacni hadday xadkii waayeelnimo gaadhaan iyo haddaysan gaadhinba qaabka loola dhaqmayo ilaahay subxaana wa tacaala ina baray kadib haddii ay dhintaanna waxaa laynaga rabay hadday nool yihiinba inaan u ducayno ilaahay subxaana wa tacaala aan naxariis u weydiinno ayuu ilaahay subxaana wa tacaala aayaadkan ayaga inoogu sheegay kadalika aayaadka kale ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wawasayna alinsaan wawasayna alinsaana insaanka iyo aadmaha waxaan u dardaarannay biwaalidayhi ixsaana inuu labadiisa waalid u samafalo ayaan u dardaarannay buu le ilahay subxaana wa tacaala cabdullaahi bnu mascuud radia allahu canhu waa taqaaniin ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka soo warinayaa xadiiskii ay soo saareen bukhaari iyo muslim iyo keyrkoodba ayaa wuxuu leeyahay sa'altu nabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaa waxaan weydiiyey can ayi alcamali axabu ila allah camalka ilaahay subxaana wa tacaala agtii looga jecel yahay muxuu yahay baan weydiiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku jawaabay nebigu oo uu jawaab siiyey alsalaatu liwaqtiha salaada oo la tukado waqtigeeda oo aan waqtigeeda la dhaafin waa camalka ilaahay subxaana wa tacaala ugu jecel yahay kadibna wuxuu weydiiyey uma ayu kadibna yaa nebi allah maxaa ku xiga kadibna wuxuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam uma biru lwaalidayn inaad labada waalid u samafasho ayaa ku xigtay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka waa waxa labaada ilaahay subxaana wa tacaala ugu jecel yahay acmaasha qofka uu sameeyo weeyaan walaale intaa waxaa ku xiga xadiidka anas radia allahu canhu uu soo warinayo oo kadalika ku sugan isaguna saxiixulbukhaari iyo muslim iyo qorkoodba ku sugan ayaa wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa la weydiiyey akbaru lkabaa'ir dunuubta kuwa u waaweyn baa la weydiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam kadibna wuxuu ku jawaabay ashirku billaah ilaahay subxaanahu wa tacaala oo cid lala wadaajiyo cibaadadiisa iyo wa cuquuqu lwaalidayn labada waalid oo caaq lagu noqday buu nebiga calayhi salaatu wasalaam arrimahaas oo dhan walaalayaal waxayna tusinayaan in labada waalid oo loo samafalo iyo shareecadu meeshay saartay labada waalid oo loo wanaag sameeyo oo loo baarinimo noqdo iyo shareecadu halka ay dhigtay ayay walaalayaal inoo sheegayaan waana wax loo baahan yahay qof kasta inuu isfiiriyo meesha uu isagu waalidkii uu ka joogo waxaa laga yaabaa in la isweydiiyo waalid badan isweydiiyo maxay ilmihii caasi u noqdeen maxay ilmihii ugu xumaadeen waxaa laga yaabaa bal qof kasta ay dib ha uu noqdo waxaa laga yaabaa waa taariikhuu isagu dhigay oo isagu uu qoray baa laga yaaba waxaa laga yaabaa isagu inuusan labadiisa waalid u wanaagsanayn inuusan ka warhaynin jiro iyo caafimaad waxay qabaan gaajo iyo dhargid waxay qabaan inuusan xaaladooda midna ogeyn baa laga yaabaa uusan ka warhaynin uuna rabo isagu in labadiisa caruur ama caruurtiisoo dhan ay u noqdaan baariyaal oo u baarinimo sameeyaan oo ka warhayaan oo ay ogaadaan uu doonayo shataana maa baynahumaa aad bay u kala fog yihiin labada arrin waxaad ogsoon tihiin qisadaad wada maqasheen waa soo koobayaay waxay ahayd in nin uu dhigay aabbihii meel geed hoostii uu dhigay yacni caaqnimo iyo caasnimo meeshuu ka gaadhay waa kadib aabbihii halkiibuu kaga tegey halkiibuu ku dhintay maxaa dhacay kadibna waa dambe buu yimi waa dambe markuu isagu waa yeeloobay ayaa wiilkiisii isaguna isla bartii uu aabbihii dhigay ayuu dhigay ilen baarinimada labada waalid iyo caasinimadu intuba waa wax uu qofku qorayo uuna ka tegayo uuna heli doono qof kasta waxa uu dhigto ama dhintada uu dhigto ayuu dhadhamiya dhintada uu dhigto ayuu qof kasta u dhadhamiya walaalayaal labada waalid oo loo samafalo waxaa lagu aqbalaa dacwada iyo ducada ilaahay subxaanahu wa tacaala labada waalid oo loo samafalo waxaa lagu tagaa janno labada waalid oo lagu samafalo loo wanaag sameeyo waxaa lagu helaa raalli ahaanshaha ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay baa kaaga raali noqonaya
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه كما في سنن الترمذي وغيره، هو حديث صحيح حديث كأسرع وحليه النبي عليه الصلاة والسلام: رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. رالي أهانشاه إلهي سبحانه وتعالى وحكو حليه إن اللبدا والد كارها لنغضان عرض اللبدا والدنا وحيكو حرنتهي إنه إلهي عرض إلهينا وحيكو حرنتهي إنه عرض والدك كو عليسي هدي والدك كو عليسي وقو إلهينا سبحانه وتعالى وكو عليسي هدي أي والدك رالي كايهي وقو إلهي سبحانه وتعالى يساقنا الرالي أي كايهي وحي نور شيء النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأنا حديث صحيح وكسر النبي عليه الصلاة والسلام.